مدن وزير عبد الرحمن حوش جبريل ويديها نقوليه مقعد وعبد الناصر على فرح والقص سؤاشيس waxay tahay keeba awood badnaan doona ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soo socda shirkii hadda lagu qabtay garoowe habka dowladda cusub la sameyn doono ay noqon doonto ayaa lagu soo wada heshiiyey waxyaalaha lagu soo wada heshiiyeyna waxaa ka mid ah inuu madaxweyne parliamentary ah la keenayo oo ah prime minister inuu madaxweynuhu soo bandhigayo markii la doorto sida hadda optionka hadda la qaatana waxay u badan tahay waxay tahay in madaxweyne prime ministerku inuu lahaano awoodda fulinta oo xoog leh inuu lahaan doono madaxweynahana uu yeelan doono sidii la isugu keeni lahaa unityga ama midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sidii uu mataqaanaa usoo ururin lahaa oo usoo bandhigi lahaa akhlaaqda ama dhaqanka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed sidii ay ugu wada dhaqmi lahayd laakiin awoodda fulinta waxaa iska lahaan doona prime minister axmed ciise oo jooga Moscow Russia wuxuu ku weydiinayaa mudane wasiir heshiiskii garoowe mabaadi'da lagu saxiixay ee garoowe principles wuxuu sheegayaa in dastuurka Soomaaliya ay ansixin doonaan 1000 qof kunkaa qof yaa soo xuli doona oo xaq u lahaanshaha xulidooda yaa iskale qaabkeesa lagu soo xuli doonaa kunkaas qofood horta la soo xulay waxay ka koobnaan doonaan ummadda qaybaheeda oo dhan sidaan garoowe ku qoran waxaa waaye in 300 oo ka mid ah ama 30% boqolkiiba 30 inay dumar noqdaan in loo qaybsado 4.5 oo formulada la yidhaha 4.5 kabacdi haddana in laga helaa in go-an oo ah dhalinyaro in go-an oo ah dumar in go-an oo ah odayaal dhaqameed in go-an oo ah beecmuster in ah culamaa uddiin si loo helo community-ga dhan ama Soomaaliya oo dhan xirfadaheeda kala duwan iyo meelahay kala joogaan iyo qabaa'iladii deganaayeen dhan si loo helo marka sababta loo sameeyay wax kale maaha in sida kaliya lagu ansixin karo ugu fiican dastuur waxa waa in afti uu qof walba ka boodayo lagu ansixiyo marka maadaama nabad weyn aysan jirin lama samayn karo marka midda ugu dhowtaanay noqoto 1000 qofood in la keeno laakiin kuwaas qof inay noqoto meel ay bulshada dad walba ku jira iska dhex arki karaan ama qabiil ha noqoto ama xirfad ha noqoto ama dumar iyo rag ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto marka sida lagu soo xulay taas noqonaysa waajibaad badan baa idin hor yaalla oo heshiisyadii garoowe aad ku qorateen in la sameeyo ka hor 20 Agas haddii ay waxyaabahaas oo dhan ku fuli waayaan ama laga dhabayn waayo waajibaadyada xilligaas la rabo in la qabto maxaa la yeelayaa oo xigi doona anaga horta kale waxaan qabnaa hal qorshe kaliya oo ah qorshe hore oo ah plan A plan B ma hayna hadda plan A waxa waaye waxa lagu waxaan dhahnaa waa qabanaynaa inaan qabano waanan qabnaa inaan qaban karno markii aan shalay aan bilaabaynay qorshahan roadmap dad badan waxay lahaayeen ma la samayn karo garoowe ayaan aadnay shirka ugu horeeyay waxaa la yidhi waxba laguma soo heshiin karo waa soo sameyn garoowe kii labaad baan aadnay sidoo kale soomaalida kaliya ma beesha caalamka waxay nagu lahaayeen dadkan waxba kuma soo heshiin karaan waa soo dhammeyn hadda waxyaalaha kusoo heshiin waxaa ka mid ah April dhamaadkeeda inaan qoraalkii dhammaynaa dastuurka May inaan ansixinaa dhamaadkeeda June 15 baarlamaanka cusub oo 225 inaan keeno marka hawshan waa socotaa guddiga khubarada loo xilsaaray dastuurka inay dhammaystiraan saad arkayseen xamar bay joogaan hadda badidood shaqadii waa bilaabeen intii ugu badneedna waa lasoo wada sameeyey hadda waxaa haray in la isu geegeeyo qodobada iska hor imaanaya in laga saaro waxyaalahan kaloo ilaa hadda lagu soo heshiiyo garoowe shirka ka dhacay lagu soo heshiiyey in lagu daro in wada tashiyo cusub hadda soo socdaan ka sameynayna xamar iyo meelaha hadda shabaab laga xoreeyey iyagana
aaraadaan kasoo qaadan in lagu daro marka plan A keliyaan hadda haynaa oo ah waa dhammaynayna waan dhammaystiri doonaa ilaahay haddii ilaahay raaco 22 sano u dambeeyay Soomaalida dibadda ayay kusii qulqulaysay qaar badan oo ka mid ahina ma yaqaanaan ku hadalka af Soomaaliga ma isu soo sharaxi karaa madaxweyne qof aan luqadda Soomaaliga ku hadla aqoon marka ugu horeyso inuu qofka isu soo sharaxo waxay noqonaysaa qofku ma yahay wadani ma yahay citizen ma yahay marka dabcan maadaama dibadda la jiro dad badan oo ku sifoobi doona jiri doona inay yihiin wadani ama citizen oo luqadoodana ay safiicnaan karin marka wax u diidaysa ma laha laakiin waxaan qabaa wax practicala ma noqon doonto maxaa yeelay qofka raba inuu isu sharaxo madaxweynenimo waa inuu campaign galaa oo dadka wax ka dhaadhacsiiya ummadda Soomaaliya af Soomaaliya ku wada hadashaa marka dabcan waxay noqonaysaa qof aanan af Soomaaliya ku hadlaynin isuma soo sharaxi karo waxa u diidayso dantaada u diidayso laakiin inuu qofka isu soo sharaxo madaxweyne iyo inuusan sharaxi karin waxa qeexaya waxa waaye qofku ma yahay wadani mise ma aha marka luqad ma ku xirnaan doonto marka qof kastoo wadani ah oo citizen ah wuu soo sharaxi doonaa laakiin sida practicalka waxa waaye practical waxa waaye qofka rabo inuu galo doorasho galo waa inuu ummadda dhan soo hantaa ula soo hadlaa luqadda lagula hadli karna waa Soomaaliya waa marka waa waxaa lagu heshiiyey in Soomaalida soo socota ay noqoto federaal haddaba soo kuma adkaan doonto uu leeyahay shardi Cabdiqaadir in Soomaaliya ay federaal qaadato ama ay abuuri karto dagaal ku dhisan dhul ballaarsi sababtoo ah uu leeyahay Soomaalidu waa dad wada degan oo aan kala soocnayn ama hal magaalo ay sheegtaan laba maamul وأتمنى أنه هذا السيد غفل وأركو فدريشن كل هذا على سكون راعي إن فدرال نسميه نوع ونقول لها وح ولا تشي بدن جلدون ونقول لها صعندون مركع صومالي ده لو تصلوا ديال الدولة اللي أنا جرتي عاد بعد وكل الجورين ودلوقتي وكل الدعان sida kaliya la isugu soo noqon karaa Soomaaliland hadaan ka hadalno aan ilaano walaalaheen aan la gaarno mataqaanaa heshiis oo dhab ah oo aan raali gelin oo aan isku soo noqono Soomaaliland raadino ma garanayo saan ku dhigi karo Soomaaliland dawladda ka soo midnooda centerka xamar baa power ka dhan oolaya waxay noqonaysaa waa in la keenaan yani solution cusub in la keeno mid kale dad badan oo hadda aan wada tashi la sameynay meelo badan aan tagin waxyaalaha ay sheeganayaan waxyaalo oo dhab ah ay leeyihiin dawladda jiri jirtay dawladda laakiin macna ma noo sameyn jirin haddaan anigu deganahay caluula ama aan deganahay baalkan muxuu ahaa gurceel ama aan deganahay badhaada dawladda waxba ima tiri jirin maba arki jirin marka in new federation la sameeyo oo contract cusub la wada galo waxay keenaysaa horta nabad ay keenaysaa wada hadal waa keenaysaa mid kale waxay keenaysaa hawaa ummadii waxay u geenaysaa dawladnimadii waxay ugu geenaysaa tuuladii iyo xaafadihii lagu geenaya yani waxaa dhici jirta qof baasabor u baahan inuu ka yimaado tuulooyin ku yaalla Owdal area ama Gabiley area ku yaalla inuu baasabor usoo doonto Muqdisho ama qof jooga Caluula inuu soo doonto license malayga lagu gaato marka taasna in la kala fududaado wax dhibaato kuma jiraan laakiin waxay noqon doontaa wax waqti badan laga wada hadlo oo dialogue u dhaco adduunka dhan dastuur uu sameeyaa dastuurka la sameeyaa hal mar inta la isku yimaado inta la qoro ma lagu kala tago dastuurada waxaa jiro 200 sano sheekadooda socotaa Canada iyo Mareykanka iyo wadamo badan dastuurada 200 sano socdaan oo intaas wax laga bedelaa marka laakiin waxay noqonaysaa dastuur sameyntiisana waa dib u heshiisiin waay because ummadda markay wada hadlaan ka wada hadlaan si wada noolaanaa contractgaas ay wada galayaan waxay keenaysaa wada hadalkana uu keenaa heshiis buu keenaa هذا